طلع شوي هذا يا سيدي way isugu tageen qaybaha kala duwan ee 14 November 2000 sanad kadibna waxa la dhisay baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya bay noo tahay inaad inagala soo qayb guda galo furitaanka xafladda Caleemasaarka dowladda federaalka Koonfur Galbeed waxay maanta noo tahay guul weyn waxyaalaha weyn waxa noogu daran colaad may kala waliyalka taabaday madaxweynaha mudane Cabdiaziz Xasan lafta gareen goboleedka Koonfur Galbeed waxaa jiro culays badan dhibaato badan ay jirto dowladnimada Allah mahadle oo maanta halkan soo kaay keenay Caleemasaarkan aan marxaati ku nahay kulligeena oo weli ay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay hawshiisa uu fududeeyo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo oo kale dadkii ka qayb galay campaign-ka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignified ka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo sida ay u aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo ciidamada AMSOM ee Itoobiyaanka ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii adduunka dhan laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay cadeed sidee u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri Cabdiaziz maxamed xasan lafta gareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaan ku raahdaa Puntland hadalkay yiraahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waana soo dhawaynaynaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yiraahdo calaaqaad waa la kala goostay looma baahna shaqadii waa joojinay looma baahna maxaa yeelay waxa loo shaqeeyo waa shacabka Soomaaliyeed waxa dhibaatadu hayso waa shacabka Soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsano gacmaha isqabsano oo aan shacabkeena iyo dadkeena u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha Allah ballan weeye inaan uga shaqeyn doono ummadeena aan u shaqeyn doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh